kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada xaaladda Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay yeelatay waji cusub kadib markii dawladda federaalku ay qaaday tallaabo kale oo ka cadhaysiinaysa hogaamiyaha ku sugan magaalada Kismaayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. dawladda federaalka waxaan ogsoonayn in looga taagroonaaday ay ku fashilantay ku ceebowday hawlgalkii ay ka bilowday magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. haddaba bulshada Soomaaliyeed waxa ay sugaysay tallaabo noocee ah ayay dawladdu qaadi doontaa oo Axmed Madoobe ma luqunta ayay u dhiiban doonaan mise meel kale ayay kaga furi doonaan oo way aarsan doonaan. dawladda federaalku tallaabo kale oo ka cadhaysay Axmed Madoobe dhowrkii saac ee ugu dambeeyayna go'aano kala duwan ay ka soo saareen maamulka Kismaayo ayay qaaday oo ay ku dhawaaqday. waan dul istaagi doonaa ciidamo tiro badan oo lagu soo daadgureeyay deegaanada gobolka Gado goobaha la geeyay mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka oo ayagana ku soo wajahan gobolka Gado iyo sidoo kale qorshayaasha dawladda federaalku ay bilowday ayaan qodobkeena koobaad ku dul istaagi doonaa haddii alla idmo. qodobkeena labaad magaalada Muqdisho barakicin baa ka socota. magaalada Muqdisho barakicin baa ka socota waliba gaar ahaan koonfurta magaalada Muqdisho beela gaar ah oo dago ayaad moodaa dawladda federaalku in ay u jeedo barakicin qabi waxa way maalinba xaafad baa lagu duulaa. maanta waxaa lagu duulay xaafad ka tirsan degmada Taleex gaar ahaan aagga loo yaqaano hotelkii raaxada iyo sidoo kaleeto xeryo dawladeed oo dawladdu ay halkaa ku lahayd laakiin muddo badan dad shacaba oo Soomaaliyeed ay ku noolaayeen ayay dawladdu saaka ku duushay. laba nin oo midna xildhibaan midna ganacsada ah ayaana dhulkaasi la siiyo lagu wareejiyay shacabkiina cagaf baa loola imaado leeyay iskaga baxa meesha sheekh ka guura ka calaali arrin adag baa magaalada Muqdisho ka taagan iyadana waan dul istaagi doonaa. dhanka kale to maalintii saddexaad ayuu xiran yahay qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. ganacsatada waxaa lagu soo rogay lacago meelay u socotaan la garanaynin oo dheeri ah ayaa lagu soo rogay waana qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee suuqa bakaaraha ka howlgala ma wada aha suuqa dhan waa qaybo ka mid ah weeye waa ay tamada laga ganacsado qaybo ka mid ah dawladdu ku soo rogtay lacago gaar ah halka kuwa kalena aan ogsoonayn in bilo ka hor lacago kale lagu soo rogay iyagana oo ay taagnay doodooda iyo sidoo kale muddo badan la sii jiiday. waan dul istaagi doonaa iyadana cabashada dadweynaha magaalada Muqdisho dhinacyada kala duwan ee xukuumadda ay ka cabanayaan dawladdu boobka ay ku hayso dadka shacabka barakicinta iyo sidoo kale lacagahan aan jid iyo jahar ahayn ee dadka shacabka ee magaalada Muqdisho lagu soo rogayo ayaan iyadana dul istaagi doonaa. soo dhawaada boqolka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay dawladda waxaan ogsoonayn ama mas'uuliyiinta aan filla Soomaaliya waxaan ogsoonayn in hawlgal ay ka bilaabeen magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ee Jubbaland inay ku ceeboobeen oo ay ku fashilmeen kadib hawlgal aan laga fikirin waxa ka imaan doona iyo sidoo kale natiijadiisa aysan khuburo falanqeynin wararka soo baxayana ay sheegayaanba in taliyaashii ay qusaysay qaar ka mid ah xataa aan lagala tashanin in halkaasi ay ciidan ku geysay. dhammaan qarankeennii Soomaaliyeed in la ceebeeyey ciidankeennii in la ceebeeyey astaanteennii in la ceebeeyey nin jabhada oo asaga iyo argagixisada wada shaqaysta in loo gacan geliyay ciidankii ceebtaad aragtayna ay ugu dhacday. arrintaa waxay ku dhacday qorshe xumo dawladda xaggeeda oo madaxda dawladda anigu waan idiin sheego waxaan idhi war dawladdu hawlgal waxaa jira ay kaga guulaysan karto kooxahan ishuwisan ee Jubbaland ku habsaday ee dhibaatada ku haya waa Axmed Madoobe iyo kooxda khawaarijta hanaan lagaga guulaysan karo shacabka Soomaaliyeedna ay ku taageeri karaan taageero badanna ay ku mutaysan karaan dhul badan oo maqanna lagu qaban karaa jire dawladdu halka maxay ka doontay baan lahaa ilaa intii ciidanku ay joogeen mar walba waa ku soo celcelinay waxaan lahaa war meeshan wax baa ka soo socda ciidanku ma iska taageerayeen mooyane hanaanka iyo talada lagu geeyay ciidanka halkaas madaxda dawladda anigu mar walba aan ku cambaareeyay. hadda dawladda kaas way ku fashilantay way ku ceebowday shacabka Soomaaliyeed waxay sugayeen war haada dawladdu tallaabo noocee ay qaadi doontaa
axmed madoobe ma luquntay u dhiiban doonaan oo waxay dhihi doonaan gacmahan taaganiniyow oo heshiis baa lala geli doonaa oo xadgudubkii doorashadii wixii isku aanshubka qaabka darayd baa laga yeeli doonaa mise tallaabo kale oo qaniya kaa fujise bay qaadi doonaan baan lahayn dowladdu haddaba qorshay degeen inuu midho dhal noqon doono iyo inuusan noqon doonin lama garanayo oo horey baan idiin sheego waxaana idhi damu jadiid tallaabaday qaadaanba iyagaa isfashiliya iyagaa isceebeeya iyagaa islafagura lafagurka haddii laga daayo oo raaskaabooni ay u noqoto cashir tallaabo aada u wanaagsan annaguna aan bogaadinayno ummadda soomaaliyeedna ay bogaadinayso o taageerayso ayay bilaabeen oo hadda la bilaabay ciidamo tiro badan baa laga dejiyey magaalada baardheere ee gobolka gado magaalada waa istaraatiiji marka laga eego qabashada magaalooyinkii waaweynaa ee jubbaland oo caasimadii jubbaland ay ka mid tahay waxa weeye gacanta argagixisada ku maqan iyo weliba hanaanka looga guulaysan karo keligii taliskan iska fadhiya magaalada kismaayo axmed madoobe haddii baardheere la dardargeliyo oo dhalinyarada soomaaliyeed way ka go-an tahay inay dhiigooda iyo wakhtigoodaba u huraan la dagaalanka khawaarijta iyo soo celinta dhulka soomaaliyeed iyo ka dulqaadidda shacabka soomaaliyeed dhibaatada ku habsatay haddii iyaga xoogga la geliyo bu-aale 5 maalin baa lagu qaban karaa howlgalka ka bilowda baardheere marka laga xisaabiyo 5 maalin kuma qaadanayso howlgal nidaamsan haddii la bilaabo qabashada magaalada bu-aale ee caasimadda jubbaland axmed madoobe kismaayo inaan loo imaanin bay isaga dani ugu jirtaa qabashada bu-aale dani uguma jirto oo wuxuu ogsoon yahay haddii bu-aale uu qabto inuusan kursiga kusii fadhinaynin aad buu ogsoon yahay ma haysanayo kursiga axmed madoobe barqin baa magaalada ayuu ka baxay laga saaraya axmed madoobe marka wuxuu rabaa inuu kismaayo dadka ku caydhcaydsado oo halkaa uu iska fadhiyo inta uu ka dhimanayo ama waxa weeye isbedel wax kale ka dhacayo ama xabad looga eryayo inuu halkaa iska fadhiyo rabaa waan ogsoonahay howlgalka dowladdu ay ka bilowday baardheere ciidamada lagu geeyey wuu carqaladayn doonaa oo haddaba warar buu ka soo saaraya ciidamuu soo daadgurayn doonaa oo xagga korena waa ka keeni doonaa xagga naafmadow buu ka dhaqaajin doonaa wuxuu dhihi doonaa bu-aalaa loo socdaa oo howlgalka wuu carqaladayn doonaa oo isagu wuxuu kooxda khawaarijta heshiis kula galay inaan bu-aalana la qaban magaalooyinka ay haystaan isagana kismaayo haysto oo kismaayo un aan loogu imaanin iyo heshiis kula galay waan ogsoonaya wuu carqaladayn doonaa laakiin dowladdu waxaa la rabaa inay hadaf midaysan ay bulshadeeda ku wado oo deegaankaas abaabulka ay ka bilowdo rag la soo xulay loo dhiibo hoggaankiisa oo dadka deegaanka weliba la dhiirigeliyo oo ayaga juhdi la geliyo iyagaa ka adag kooxda khawaarijta oo dhulka xoreynaya ciidan bay dowladdu geysay wuxuu noqon doono lama garanayo laakiin waa tallaabo bogaadinteeda leh waa tallaabo wanaagsan haddaan la fashilinin annaguna haddaan nahay bahda warsama media iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeedba inay taageeraan howlgalkaasi lagu qabanayo caasimadda bu-aale caasimadda jubbaland ee bu-aale lagu qabanayo waa in la taageeraa wey ma aha dowladdu waa dowladdeennii madaxda dowladdu waa madaxdaanadii wixii dhaliilow baan sheegaynaa mooyeene waxaysan dhaliil lahayna sheegi mayno waxay ku saxan yihiinna waan ku ammaanaynaa waxay ku xun yihiinna dee waxa weeye waan ku dhaliilaynaa oo waxaan leenahay waxabay ku xun yihiin wixii ay ku fiican yihiin oo tallaabo ay qaadaan oo bogaadin leh waan ku ammaanaynaa oo waxa weeye waa madaxdeen iyo dee hadda iyagiiba ra-iisul wasaarihii iyo waxa weye madaxweynihii oo ayagaa ummadda soomaaliyeed maandheed u haysta maanta marka dowladdu marka ciidan bay geysay baardheere madax ka socota dowladda federaalkuna gado ayay kusoo wajahayeen weliba garbaharey haddayse haddaba aysan soo gaarin waqti xaadirka nilahadayba haddaysan soo gaarin ciidan kale inta oo beled xawo lagu diyaarinayna isaga waa jira ilaa 1200 oo askarina waxay joogaan magaalada ceelwaanba iyagana joogaan dowladdu go-aankaas bay qaadatay anaguna waan kula talinay horey baan ugula talinay waxaan dhahnay war raaskamboni howlgalkii la geeyey ciidankii la geeyey waa lagu khaldamay haddii la geyn lahaa baardheer oo halka howlgal laga bilaabi lahaa dee mar horaba waxa weeye caasimadii la tegi lahaa axmed waana wadada keliya ee axmed madoobe looga guulaysan kara weeye qabashada magaalada bu-aale caasimadda jubbaland haddii magaalada la qabto waxaa la dhisi karaa nidaam reer jubbaland wada leeyihiin nidaam ummaddu ay wax badan ka faa'iido oo aan ahayn midkan 14 sano kismaayo iska dhex fadhiya ee meel la u soconin tuulo xoreynaynin waxba laga faa'iideynin 14 nin oo markii la tagay kismaayo nin walba meel ku habsaday ayaa 14 baa iska jooga fursad mare hore u socod mare
wax Jubbaland loo qabanayo ma jiro qof hadli karay ma jiro waxa kaliya laga faa'iideeyo wuxuu noqday afduub dil xarig tarxiil inta baa laga faa'iiday wax kale laga faa'iido bulshada reer Jubbaland ay ka faa'iido ma jiro waxa bulshada reer Jubbaland qabiil walba meel buu iska farfadhiyo shib uu yahay oo hadli laayay hada gobolka Gado Axmedoba waligiin ma tagin waxa kama qabanin ma dhaqa kismaayo ma dhaafo kuwa horgal ah oo xataa aanu malayn inaysan dhalad xataa ahayn ayuu soo magacaabayo kismaayo soo dhaafin oo bulshada reer Gado wax ku cunaya oo intooda badan waxa la yidhi ma aha dhalad sax oo dadka deegaanka laha ma aha raga hoos fadhiya ninba ninku ka litay buu Axmedoba iyo magacawdo uu yiri ag fadhi oo de kaba qaado markaas aan hadli karin oo waxba bulshadiisa aanu qaban karin si kastaba talaabada dawladdu hadii iyagu aysan isla faguri waa inay sheegay si fiican u dhageysta dab jadid siyaasadoodu waa iskarabiya anu ma taageersani talaabooyinka wanaagsan ma taageera oo ay qaadaan laakiin waa in xaqiiqada laga hadlana way fiican tahay siyaasadda dab jadid waa isgarabiya ayaga isla fagura ayaga isdabagura midba midka kale uu sii fashiliya wixii loogu talagalay iyo qarashkiina midba kii loo dhiibo uu dhacay oo la tagaa marka arimahaas baa fashilinaya haday fashilka laga ilaaliyo hawlgalka baar dheere waa muhiim waa hawlgal laga guuleysan karo kooxaha iskor saaran ee Jubbaland ku habsatay kooxaha laga guuleysan karo way guuliga gobonimada leena ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyagu meel walba la geeyo waa ku filan yihiin laakiin talado waxa weeye dadka mas'uuliyadda markaas u haya ee hogaaminta hadaysan ka xumaanin dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ceeb male ciidanka xoogga Soomaaliyeed ceeb male meeshay galaan waa galan tahay laakiin hogaaminta haday ka xun tahay de ciidan hogaamin aan lahayn de ma soconayo meel lama gaarayo marka mar walba hogaaminta ciidanka lagu jabiyaa raaska booli hogaaminta lagu jabiyay in halka la geeyo ma ahayn jasiirada yarta ee qorafka waxa laga doonay ma lahayn in la geeyo ma ahayn waa meel Axmedoba oo xidhan waxa weeye uu ogsooyay ridaheeda inuu la geeyo ma ahayn dhulka xorta Soomaaliyeed oo umada Soomaaliyeed wadareedahay baa la rabay in la geeyo gobolka Gado ciidamada laga tijaaro rabay shacabka gobolka Gado waa shacab ikhyaara weeye waa gob dhashay 14 sanayba shibiska yihiin oo ay Axmedoba hataa aysan ka goosanin hadana uu ka goostaanila Axmedoba kama goosanin Soomaalinimada iyo midnimada iyo wadajirka ilaalinaya 14 sano oo waxba aysan ku qabin waxay ku qabaan aan jirin marka waa shacab gob ah ciidanka Soomaaliyeedna mar walba iyagu way taageersan yihiin way soo dhaweynayaan waxa la rabay marka dawladdu inay halkaas ay xoog galiso ciidan geyso laakiin haday garatay waa muhiimad weyn anaguna waa taageeraynaa hawlgalkaasi insha Allah ta'ala waxaan isku day doonaa inaan waliba tago on ciidanka waliba anigu dadka gubaabinaya ee daba taageeran ka mid noqdaan rajeynaya insha Allah ta'ala madaxa dawladana way ku mahadsan tahay hadii wadada saxda ay garato wixii ay ku qaldan yihiin hadii waxa weeye way ku qaldan yihiin ma dhahay doonaa hadii wax ka qaldamaan laakiin baar dheer hawlgalka laga bilaabayo waa hawlgal muhiim ah umada Soomaaliyeed ee Jubbaland muhiimad gaara ayuu u leeyahay waa in la taageero ciidankaasi dhinaca kale magaalada Muqdisho horta barakicin baa ka socota waxaan qarinna ma hayno madaxda dawladdu ma qaanaylo Xasan wax ka ogyahay iyo inuusan ka ogeyn maadaama ibniki cusbaayo waxa weeye gudoomiyaasha gobolka Banaadir isbedelayay baa waxaan ka shaqeynaya maaduuqa Xasan xooga hanti waxa weeye laxjaclada lagu yaqaanay isagii baa kamida lama garan karo magaalada Muqdisho waxa ka socday waa wax aad looga xumaado madaxda dawladda waxa leenahay shacabka sidaa laga daayo shalay waxaan ogsoonayn xaafadii dabdamis dadkii sida loo galay xaafadii kalluunka dadkii sida loo galay iskuul burisyo dadka sida loo galay haddana waxay ka socotaa xaruntii hore la dhahayay hotelka raaxada la dhihi jiray waa dhul dawladeed oo waa dan guud xaafadda taleex bay ku taalay magaalada Muqdisho laakiin de shacabka waa in wax loo sameeyo intaan la barakicin nin ganacsada xoogaa laga qaatay cagaf buu isagu la imaanayaa ciidan shacabkii uu dabada ka galinaya guriyo wuxuu ku duminaya war waa ayaan dareenteeda leeg waa musiibo inta leeg madaxda dawladda waxa leenahay waraarinta way socoto waliba shacabka gaarka waliba sida gaar shacabka loogu jeedo waa shacabka habargedir Soomaalidu qabiil bay wax ku fahamtaa waa inaan